kuwaani waa qisooyin walaalayaal la dhihi karo dadka caqligooda way ka yaabsadeen. aduguna waad la yaabi doontaa fadligan inta uu la-eg yahay ee ilaahay uu ku khaas yeelay aayatul kursi iyo dadka la saaxiiba. waa qisooyin ku saabsan aayatul kursi iyo manfacada laga helay. dardaarankeenuna waxa weeye oo naftayda iyo tiinaan siinayo ha ka teginina oo ha moognaanina aayadan aayatul kursi la yiraahdo. waxaana halka idinkugu soo gudbinaynaa dhowr qiso oo ku saabsan aayatul kursi. qisooyinkaasoo na tusaya sida fadligeeda u ballaaran yahay oo u gudawan yahay. faa'iidooyinka ku jira aayatul kursi waa kuwa adduuniya aakhira aad helaysid. ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu jacfar radiallahu canhu ayaa wuxuu yidhi waxay asiibo igu dhacay xanuun aad iyo aad u daran oo dhakhaatiirtii ay ka noogeen oo ay kari waayeen daawadiisii. habeenada ka mid ah ayaa xanuunkii igu siyaaday. kadibna waxaan go'aansaday buu yidhi bal wax ka mida qur-aanka inaan isku akhriyo si ilaahay caafimaadii siiyo. aayatul kursi baan akhriyey buu yidhi. kadib baan isku masaxoo ismarmariyey. kadib baan iska seexday buu yidhi. hurdada dhexdeedaan riyo ku arkay. riyadaasu maxay leedahay? wuxuu yidhi 2 nin baa ii imaaday. hortayday istaageen. labadoodii baa su-aala isweydiinaya. mid baa kii kale wuxuu ku yidhi ninkan halkan hurdaa wuxuu akhriyey aayad ay ku jirto 365 naxariis. ilaayaa haddana hal naxariis oo 360ka ka mid a ayuu helay oo asiibtay. hurdadan ka soo toosay buu markiiba. kadibna waxaan dareemay in xanuunkii iyo qandhadii ay iga tagtay oo aan caafimaaday. allahu akbar. wuxuu leeyahay 365 naxariis ayaa ku jirta aayadan. hal naxariis buu helay oo tiradaas ka mid ah. ka waran in badan hadduu heli lahaa. maasha allah. waa qiso cajiib ah. qiso kaloo la wariyo nin la yidhaahdo abubakar ibnu nuux ayaa wuxuu ka wariyay aabbihiis in aabbihiis uu yidhi nuux ninka la yidhaahdo waxaa jiri jirayba nin aanu saaxiibo ahayn oo dukaan leh. dukaankiisaas aayatul kursi buu habeen kasta ku akhrin jiray markuu soo xirayo. habeenada ka mid a ayuu hilmaamay. kadibna wuxuu soo xasuustay marka gurigii uu tegay. halkaasuu ka soo akhriyay aayatul kursi. dhinaca dukaankiisa uu ka jirana waa u soo ishaaray gacanta. kadibna wuu iska seexday. waaga markuu baryay oo subaxii la gaaray ayuu dukaanka soo aaday. kadib buu furay. markaasuu wuxuu arkay alaabtii dukaanka taallay oo inta lasoo ururiyey dukaanka dhexdiisa lasoo dhoobay iyo nin ku dul fadhiya halkaas. ninkiibuu weydiiye u yidhi oo dukaankayga maxaa ku soo geliyey? miyaad jabsatay dukaanka? maxaad halka ka samaynaysaa? ninkiibaa wuxuu yidhi maya ha qaylin, xoolahaadii waxba ma qaadan, laakiin markii hore waxaan u imid buu yidhi inaan dukaanka xado oo alaabta urursado. markaan dukaanka soo galay alaabtii aan isku soo urursaday oo aan dabca inaan la tago oo la baxo albaabkii baan garan waayey buu aan ka soo galay oo aan jabiyey. albaabkii baan haleeli kari waayey meel uga jiraba waa arki waayey buu yidhi. derbi baa meel kasta iga xeega buu yidhi. alaabtiina waa tanaa buu yidhi meesha dhooban. alaabtii baan iska dhigay bal keligaa badbaad oo baxa baan isiri. ayadana waa i suurtageli weydii buu yidhi. albaabkii meeshuu ahaaba wuxuu noqday derbi adag oo aan la dhaafi karin. marka halkaan iska fadhiistay buu marka adigu ilaa aad albaabka furtay. niniyo haddaad doonaysa iska kay cafi, anugu waa toobad keenaya. tuugnimadiina waa iska daayay. waa iska cafiye marka. ilaahayna ugu mahad celiyey ninkaas. aayatul kursiina ilaahay uga xifdiyey. aayatul kursiguu soo akhriyey in tuugan ilaahay dukaanka alaabtiisa inuu qaato inuu rabbi uga xifdiyey. maasha allah. nin kaloo saalixa ayaa wuxuu leeyahay riyan waxaan ku arkay in qiyaamihii u dhacay dadkana loo soo istaajiyey xisaab. marka aniga lay keenay si lay xisaabiyo. waa lay xisaabiyey buu yidhi xisaab yaroo fudud. xagga jannada lay kaxeeyey sidaasaan ku riyooday buu yidhi. kadibna guryo iyo daaro waaweyn ayaan arkay oo quruxdooda aan la yaabay. markaasaa waxaa laygu yidhi daartan iyo guryahan albaabadooda tiri. waan tiriyey buu yidhi. waxaan ka helay buu yidhi in albaabadu ay yihiin 50 albaab inay daartan leedahay. markaasaa waxaa laygu yidhi daartan imise qol bay ka kooban tahay bal fiiri. waan tiriyey buu yidhi. markaasa waxaan arkay inay tahay 175. markaasaa waxaa laygu yidhi run baad sheegtay, waa sidaas. markay halkaa riyadaydu marayso ayaan farax daraaddiis iyo faraxii iga batay ayaan hurdadii ka kacay oo booday. alxamdulilaahi baan idhi. waagu markuu ii baryey ayaa waxaan aaday buu yidhi caalimkii la odhan jiray oo taabici ah maxamed ibnu siriin oo lagu yaqaanay riyooyinka inuu fasiro. qisadii iyo riyaday qabsataan u sheegay. markaasuu wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inaad badisid aayatul kursi akhrinteeda. haabaan ku idhi oo aad baan u badiya akhrinteeda. sideed ku garatay arrintaas? markaasuu wuxuu igu yidhi buu yidhi aayaddan waxay ka kooban tahay 50 kelmadood iyo 175 xaraf. markaasaan la yaabay ninkan xifdigiisa iyo caqligiisa iyo maskaxduu leeyahay ee ku dhisan xasuusta. marka waa abaalmarkaadii. guryuhu waxay ka kooban yihiin qolalkooda 175 qol. waa xarfihii aayaddan. albaabaduna waa 50 albaab weye. waa kelmidahay aayaddan ka koobnayd. kadib wuxuu igu yidhi qofka badiya aayatul kursi ilaahay wuxuu u fududeeyaa sakaraatulmowtka.
sidaa waxaa dhahaya maxamed ibnu siriin oo ninkaas ayuu ku yidhi raxmatullaahi caleyh. waxaana ogtihiin oo in badanoo adinka ka mid a ay maqleen in nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofka akhriya aayatulkursi salaad kastoo waajiba gadaasheed, yacni salaada waajibka markaad tukatid haddaad akhrisid aayatulkursi jannada waxaa kaa hortaagan oo keliya inaad dhimatid. haddaad dhimatid jannada hore ka gelaysaa. qofka daa'ima aayatulkursi waa qof wanaagsan oo runlow ah oo caabid ah. qofka akhriya habeenkii markuu seexanayo ilaahay naftiisa meel ammaanuu u dhigaa, deriskiisa ammaan baa la siiyaa, deriskiisa ammaan baa la siiyaa, iyo guryaha ku xeeran oo dhan xumaantuu ilaahay ka ilaalinayaa tabaaraka wa tacaala. maasha allah. sidaa darteed waxaa la yidhahdaa aayatul kursi qofka akhriya oo meel ku akhriya ama guri ku akhriya, gurigaas ama meeshaas shaydaanku waa ka fogaanayaa 3 maalmood. 30 maalmood haddaad akhrisidna shaydaan waa kaa fogaanaya, gurigaada waa ka fogaanaya, meeshaad degantahay waa ka fogaanaya. 40 maalmood kaa soo agdhowaan mayo, waa kaa cararaya. gaashaan baa haysataa, difaac baa haysataa. aayad cajiibo mucjisaa weeye. qisaskan qiimaha badan markaan akhriyo oo arkay naftaydu ay dareentay, adinkana insha allahu tacaala waxaan go'aansaday inaan idinla wadaago. baaraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.